عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين soo dhawaad walaaladii magacayga waa Canab Cabdisaaq Cali inta ka xiran YouTube channel-kayga insha Allah caawa waxaan idin la wadaagi doonaa casharada imtixaanaha ee ku saabsanaa maadada cilmi baarista ama research methodology-ga waxaan rabaa inaan video-gan ama clip-kan aan idin kula wadaago qaabka Quillbot-ka loo isticmaalo haddii concept yar oo guud ah ka bixin waxa waa Quillbot-ka ama af Soomaali ah ku sheego application ama tool waaye kaasoo loo isticmaalayo markaa rabtid article-da qaabka basic wax lagu soo qorayo dhan chapter 1 ka si fiican ugu soo sharxay sida ugu dhigaysid you and word process loo marayo marka biidni ilaahi alkariim oo ku faa'iidi doontiin kana faa'iideys wanaagsan arbacadan u dambeeyay casharkii aan soo jeedinayo waxaa ku arkay ebel mar soo download gareysan jirna caadi waxaa laga isticmaali jiray google-ka hadda waa soo download gareysanaa saa u maleynayo markaas soo download gareysan kadib qaabkan ama wadana umar biidni ilaahi alkariim ilaahay garab galo السلام عليكم waxaa rabaa caawa inaan idin la wadaago qaabka loo isticmaalo paraphrasing-ka waxaa jirta tool loo isticmaalo paraphrasing-ka marka la sameynayo toolkaas magaciisa waxaa la yiraahdaa Quillbot waxaan rajeynayaa insha Allah biidnillahi alkariim inaan ka wada faa'iideysan doono aadna u fahmi doono aad iyo aadna u sahlan yahay Quillbot-kaas markii aad isticmaalaysaa Google Chrome-ka waxaan ku qoraynaa Quillbot waa kan toolkan waaye paraphrasing-ka midka ugu hore ama ugu sare ku soo baxo Quillbot paraphrasing qoran ayaa ku dhufaneynaa waa kana qaabkan ay ku soo baxaya marka soo furtid linkiga midka ugu hore aad ku dhufsanaysaa oo paraphrasing-ka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay paraphrasing waa laga maarmaan marka aad sameynayso cilmi baaris ama daraasadeynta especially qofka academiga buuga markii aad sameynaysid aad iyo aad ayuu inoo anfacaya waxayna ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan aan ku baran ama aan ku qaadaneyno daraasadeynteena marka aad u sahlan waa qaabka loo soo furo ama qaabka loo soo galo marka waxa sameyneynaa waxa tagaya waxa soo furanaya hadda marka waxa tagaynaa waxa furaneynaa mar walba xeetaa waxyaaba paraphrasing lagu sameeyo article-da markaas aad rabtid inaad wax ka qortid ilaan qof ayaa article-kan soo qoray soo daraasadeeyay ayaa wax ka soo sameeyay adi markii inaad ka duwanaato waa qasab 25 waxyaabaha soo xiganaysid iyo waxyaabahaas oo micnaha ay koobiga camal ah laakiin inta badan waa inay noqdaan marka way adag tahay inta soo page wax laga sameeyay in qofkaas oo wada qoro app-kan marka ama tool-kan wuxuu naga caawinayaa waxay tahay app ma waa tool aan caadi ku isticmaaleyno wuxuu naga caawinayaa inaan paraphrasing ku sameysano article-adeena markaad waxa sameeynaya article ayaan soo furanayaa article-kaas qaabkan u soo bedelaya article ayaan soo furanay article-kan ayaa waxaan ka qaadanaynaa qayb kamid ah kadib waan arkaynaa qaabka oo u bedelo ilaa 1000 eray ayaa lagu sameyn karaa marka article-kan ayaan qaadanayna waan arkaynaa qaabka uu bedela intaan hadda ayaa soo qaadanaynaa muhiimada inaan aragno waa bas qaabka uu sameynayo ilaa wuxuu ogol yahay 1000 ebel meeshan 1000 ayuu yahay hadda laakiin wuxuu iga noqon 700 moogi mar 500 ay marka bilowga asameeysidiis ayaa soo galayso oo qanayo gmail-kaaga ayaa lagu furaa kadib wuxuu ku noqonayaa 1000 hadda marka waxa sameynaa ku soo baasta gareynaya 490 leeso 499 ayaa soo qaatay oo eray kadib waxa taawanaya meeshan ayaa taawanaya qoran tahay paraphrase inta ayuu igu soo fasirayaa ama igu turjumayaa internetka wax yar waa kaas qaabka uu sameeyay xataa mararka qaar sentenceska waxaas ayuu bedelayaa marka waxa sameyneynaa reparaphrase waxa sameyn kartaa ina meesha ay taabanayso hadda aan taawanayo ay taalo falaarteeda qaabka soo sameyn kartaa ina meesha siito waxyaabo u baahan tahay aad dib ugu celisid marka hadda waa kan waxyaabo isbedel waxa kamid ah econometric investigation ayuu ahaa econometric research ayuu noqday waa erayo isku macno ah synonyms way iska leeyihiin qaabkaas ayuu sameysmayaa mid ka rabta aad ereyga markaas uu isbedelay laakiin jumlada ama sentences waa sidiisa waxa sameyn kartaa ereygan halahan wax ayuu leeyahay ku bedelan kartaa had sidoo kale grade kan camal waxaan sameyn karaa in aan intaan erey buu leeyahay inaan ku bedesho ayaan awoodaa marka waa kan aad u sahlan yahay waxa rajeynayaa inaan wax badan aan ka faa'iidnay waa kan hada grade sidoo kale inta hadda mujada wuxuu ugu jiray considerably waa kan hadda inta wuxuu ka yahay considerably erey soo u socdo waa erayo isku micno ah isla kali wuxuu bedelayaa waxay tahay
ereyga erey la micno ah ama u dhigan adina meesha wax leeyihiin wax markaas oo dheeri ee ku noqonayo marka waxaan rajeynayaa insha Allah biidnillahi alkariim inaan si wanaagsan aan u fahanay qaabka loo sameynayo paraphrasing-ka kadib inta markaa soo sameeyo ilaan paraphrasing ee ku sameeyay ereyada dhan waa bedelay wixii dhan waa same kali waxa bedelmay waxay tahay ereygaas erey u dhigma ayuu noo noqonayaa hadda marka waxaan awoodaa in aan sameeyo inaan soo download gareysto ilaan wixii waa bedelay paraphrasing oo ku sameeyay labada meel waa ka soo ceshan karaa qaabka markaas aara waa ka dhigi karaa sidiisa bilowga ayaan ku soo celin karaa paraphrasing ayaan sii badin karaa ereyaal badan ku micno ah ayaan heli karaa waa qabanaya erey allaale ereyga markaas aarawo ayaan ku bedelan karaa waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wax badan ka faa'iidnay sidoo kale aan wax badan ka fahanay marka hadda markaan intaan sameeyay sentence scan waxaan dhan aan sameysanay waxa sameynayaa halkan ayaa taabanaya export qoran tahay waa soo download gareynayaa marka ii soo download gareysmo waxaan ka arkaa inuu download gareysmay meeshaan ayuu soo koray laba mar ayaa taabtay sorry mid ka soo hordagta aan fureynaa qaabka oo noqdo waan arkaynaa word ayuu ii noqonayaa si toos ama direct wuxuu igu tagayaa wuxuu igu soo download gareysmayaa caadi laptopkayga marka insha Allah biidnillahi alkariim waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iidnay aan fahanay aad iyo aad u sahlan yahay waana wuxuu aad iyo aad muhiim u yahay inaan isticmaalno aad iyo aad muhiim u yahay waan ognahay in paraphrasing uu muhiim yahay haddana waa app ama tool aad u fudud marka rabtid inaad isticmaashid waxaan rajeynayaa insha Allah biidnillahi alkariim inaan wax badan ka faa'iidnay aan fahanay marka hadda waxaan sugaynaa waxay tahay inuu wordka inuu soo furmo insha Allah kaas wuxuu inoo soo baxay asoo word marka waxaad sameysanaysaa hadda caadadeed waxaad ugu darsanaysaa casharadaada iyo markaas waxaa rabtay ama aad daraaseynaysa sida darad wordkan ugu soo sameynayna oo kale marka bilowga waxa ku fiican marka wax bilaabaysid aad sameynaysid inaad in gadaala waxa ka sameynaa paraphrasing-ka iyo mandatory reference waxan mar walba ki sameynaysid ina hore ugu daba sameys ayaa qurux badan waa ka saan ayuu u sahlan yahay waxaan rajeynayaa insha Allah biidnillahi alkariim ka faa'iido doontiin aadna ka faa'iideystaan. Assalaamu calaykum.